sida la socotaan xukuumadda iyo dawladda madaxweyne Farmaajo uu hogaamiyo aniguna aan ra'iisul wasaaraha ka ahay ahmiyadda aan leenahay ama shaqooyinka aan qabano ugu waaweyn waxay ka kooban yihiin saddex tan ugu horeysa waa dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha loo dhisi lahaa bangi dhexe oo shaqeeya oo dunida la falgeli kara loola falgeli lahaa hay'adaha dhaqaalaha adduunka nalo kaga cafin lahaa deynta ganacsatada Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen bangiyo ay ganacsigooda ku horumariyaan la dhiso ilaha dhaqaalaha waddanka ama bangiga ama wasaaradda maaliyadda si adduunyadu ay u aaminto dawladnimada Soomaaliya si taas loo gaaro marka waa in waxyaabo badan la sameeyaa ugu horeyso inaan la leenahay wada shaqeyn waafi ah ganacsatada Soomaaliyeed waa la soo dhaafay waqtigii ay ahaan jirtay hadda ra'iisul wasaarahan ka tagay aan madaxweynaha soo dhageysto waxaa lagu jiraa Soomaaliya haddii aad ra'iisul wasaaraha aragtay madaxweynaha waa aragtay haddii aad madaxweynaha aragtayna ra'iisul wasaaraha waxaa lagu jiraa Soomaaliya sida Soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka sidii sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ay ahaan jirtay in dawladdu ay ganacsatada la shaqeyso waxaa ku jirta danta ummadda Soomaaliyeed in dhaqaalihiinu oo kobco si canshuurta ummadda Soomaaliyeed aad u siisaan ee kor u kacdo laakiin waxaan u baahannahay si ganacsigiinu u kordho inaan idinla shaqeyno idinku caawino sida aad u kobcin lahaydeen dhaqaalaha waddanka meesha aan rabno inaan tagno horta waxa ay tahay Soomaaliya la falgeli karta hay'adaha dhaqaalaha adduunka Soomaaliya bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka sida looga faa'iideysto kuwa kale dalalka kale uga faa'iideysan karnaa Soomaaliya bangiyada kale adduunka ama Afrika ama bangiyada Islaamka gacanteeda gaari karto Soomaaliya laga cafiyay amaahda ee qaadan karta amaahda ay u baahan tahay iyadoo ku salaysan dhaqaalaheeda meesha uu joogo Soomaaliya haysata wasaaradda maaliyadeed oo dhisan iyo bangi dhexe oo dhisan oo ku xiran bunuugta adduunka Soomaaliya ganacsatada aanay u baahnayn dhaqaalaheedu inay yaaleen dalka dibadiisa yaalaan dalka gudihiisa Soomaaliya adduunyada ay aqbashay in laga yareeyo ama laga dhameeyo musuqmaasuqa Soomaaliya dawlad wanaag leh Soomaaliya dadka lagu qiimeeyo waxa uu garanayo oo aan lagu qiimeyn cidda uu garanayo si markaan u dhisno Soomaaliya sidaas waxaa laga rabaa dawladda waxna waxaa laga rabaa ganacsatada Soomaaliya waxaan u baahannahay horta inaan is-aaminaadda idinka dhexdiina taalla aan soo dhex dhigno ganacsatada iyo dawladda waxaan u baahannahay annaga waxaana ku leeyahay deyn ku dhow 5 bilyan iyo nus deyntaas laba suun baan ku bixin karnaa in ganacsatada Soomaaliyeed ay soo qaaraanto inta ka badan 5 bilyan ee dawladdu u dhiibto aan u geeyno dalalka nagu lahaa oo aan aaminsanahay inay idinku tahay inaad soo qaaraantaan 5 bilyan oo dollar iyo waxaa jira nidaam la soo mari karo oo nala kaga cafin karo deyntaas oo xanuun badan inaad aqbashaan nagalana shaqaysaan nidaamkaasi waxa uu leeyahay shuruudo ayaa lagugu xirayaa waa inaad kordhisaa canshuurta aad qaadayso waa inaad yarayso laaluushka iyo musuqmaasuqa waa inaad dhistaa hay'adaha dhaqaalaha waa in shacabka Soomaaliyeed ay u sinaadaan adeegyada aad bixinayso waa in la hirgeliyaa dawlad wanaag inaan intaas samayno iyo inaad idinku lacagta soo aruurisaan oo aan dunida u geyno labadaas dariiq mid ayaan ku xiroobi karnaa haddii aan ka wada shaqeyno
waxaan aaminsanahay waqti kooban inaan ku gaari doono meeshii aan rabnay oon xoroobi doono taasi marka waxay muhiim idinkugu tahay cidda aan rabno waddanka dhaqaalihiisa inay kobciso waa idinka dowladda madaxweyne farmaajo uu madaxweynaha ka yahay aniguna aan ra-iisul wasaaraha ka ahay marka waxaan rabaa inaan idiin sheego hadafkeena siyaasadeed oo aan aaminsannahay dalka horumarka in lagu gaarsiiyo waxay tahay in la dhiso dhaqaale udubdhaxaadkiisa ganacsatadu ay yihiin waxaan rajaynayaa marka in shirkan ay ka soo baxdo fikir ah inaan sii adkayno wada shaqaynta aan leenahay idinkoon dowladda ugu danaynayn annaguna aanan ganacsatada ugu danaynayn laakiin aan ugu danaynayno mustaqbalka iyo karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed